الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أيها الأحبة في الله الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم isagoo nabigiisa la hadlaya Muhammad sallallahu rabbi wa sallam alayhi wuxuu ku yiri naxariis sababteed oo Ilaahay xaqiisa ka ahaatay oo ku naxariistay sababteeda ayaa dadka ugu dabacsanaatay dabacsan oo dabeecad macaan oo la jecel yahay waxaad ku noqotay naxariis Ilaahay ku siiyay waay dabeecad macaan waana naxariis wuxuu Alla yiri tabaaraka wa tacaala hadaad ahaan lahayd mid hadal qalafsan oo qalbi adag qalbigiisana naxariis aysan ku jirin hadal xun oo hadal qalafsan hadaad ahaan lahayd dadku waa ka kala carari lahaayeen idina kuma soo dhawaateen lagugumana soo urureen idina kuma raacdeen ee waa laga kala carari lahaa Allah wuxuu yiri tabaaraka wa tacaala fa'fu anhum khaladaadka dadku galayaan ay ka galayaan iska cafi ilaahina dambi dhaaf u weydiiyo inuu saamaxo arrimahana kala tasho oo ka talagali oo dadka qiimee markaad go'aan gaadhana ilaahay tala saaro meesha waxaa ka muuqata dabeecadda dabacsan ee macaan waa naxariis alle adayga iyo qalafsanaanta iyo naxariis darrada iyo afxumaduna waa ciqaab in lagugu ibtileeyo dabeecad noocaasa waa imtixaan iyo ciqaab weeye sida aayadda laga fahmayo maxaa yeelay waxay keeni kartaa adduunkana inaad mambuud noqoto laga kala cararo haddaad risaale iyo message iyo mabda wadatayna mabda'aagi inaan la qaadanin cidina ugu soo ururin laga kala fiigo haddii kale tana aad noqoto tuka cambaar leh iyo neef cadhaqaba ruuxii ku arkaba waa ka sii cararaya adduunkana aakharana إلهي تبارك وتعالى